waxaa jiray shirar toos ahaa iyo kuwa xiriir telefoon ahaa oo saacadii la soo dhaafay xubno ka mid ah beesha caalamka ay la lahaayeen maamulada Puntland iyo Jubbaland madaxweynayaashooda Siciidani iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe garowe maanta waxaa tagay xubno ka socda beesha caalamka gaar ahaan midowga Yurub wakiilka ka socda uu hogaaminayay waxaa laga wada hadlay sidii Muqdisho ay u imaan lahaayeen labada madaxweyne isla markaana ay shirka uu madaxweyne Farmaajo ee waqtigiisu dhamaaday hore uu cilaamiyay ay qayb uga noqon lahaayeen ma suurta gelin in isfaham buuxa laga gaaro kulamadii dhacay sidoo kale filla Soomaaliya ku baaqday in madaxweynayaashaasi ay shirka Muqdisho ku soo biiraan haddaba xogta soo baxaysa waxay sheegaysaa in Puntland iyo Jubbaland ay shuruudo adag oo hor leh ay hor dhigeen inay qayb ka noqdaan shirka xal loogu raadinayo khilaafka doorashada Soomaaliya shuruudahaasi oo ay qayb ka tahay in bedelka Muqdisho shirka lagu qabto meel dalka oo dhan ka baxsan si loo helo damaanad qaad xagga fulinta heshiiska la gaaraya iyo dhinaca amniga Farax Cabdulqaadir Geylan oo ah saxafi ka faalooda ama gorfeeya arrimaha siyaasadda ayaan goordhow arrimahaasi waraysi kala yeeshay عبدالغني هذا وما سنتهاي سعدي رسول في مدحنا بنتلاند واحد تجي أو على كل من وفد السعودي باش عالم كجارحنا سفر هذا ودمدا يوروب أو هجامين يو إرجع جاركا مدوج يوروب قبل سنة الصومالية وحيابها kala duwan laga wada hadlay ilaa iyo haddana waxa kamid ah idaarinta doorashada iyo sidii maamulada Puntland iyo Jubbaland ay qayb uga noqon lahaayeen geedi socodka doorashooyinka loo fulin lahaa heshiiskii 17 September iyo isafgaradkii 17 February lagu gaaray magaalada Baydhabo runtiina xogaha kala duwan ee aan ka helayno waxay cadeynayaan in midowga Yurub iyo wakiilada beesha caalamka ee wadajirka u tagay garowe ay soo jeedeen madaxda Puntland in loo baahan yahay in qayb ka noqdaan shirka magaalada shirka socda ee uu ku baaqay madaxweynaha federaalka waqtigiisa oo ilaaday isla markaana waxyaabaha kala duwan ee laga hadlay ay ahayd arintaas iyo sida shirka ay uga qayb gali lahaayeen labada maamulna sida aad ognahay waxa ay soo jeediyeen shuruudo cusub oo aysan kamid ahayn kuwii hore dhinacyadu ay isugu hayeen بعدما بيدوا إسافقرد لجو جاري وجديو كسعودي أي إسافقرد كاسي قيب كهايين وحيابها حكتها اللي هي وحكم إذا إن معمولو يسوي جيرين قشيان عصب وكم إذا إن كوحها ويران سامري السياسيين أي قيب كنقولان شركة مقولة مقشو إن سداس وكل شركة لو قبت مال أمانة أو كبحث من جهة الدلكة ما دام أيسن الشيئين مقالة مقشيان لسكوها الله يمكن أمان sidaas oo kalena ay sheegeen in dawladda federaalka ee Soomaaliya waqtigeedii uu dhamaaday dhammaan dhinacyada siyaasadda oo dhan laga qayb geliyo laguna qabto meel amniya oo ka baxsan Soomaaliya taas ayaa ah qodobka weyn ee cusub Jubbaland sidaan ognayna waxay ku soo dartay in madaxweynaha federaalka uu gabi ahaan geedi socodka doorashooyinka dhammaanjoog ka ahaado taas waa qodobka ugu adag iyo qodobka dawladda dalka ee lagu qabto labada qodob waa labada qodob ee ugu xasaasan waqtiga ku soo kordhaya saaxadda siyaasadeed ee dalka Farax marka la fiiriyo xubnaha beesha caalamka iyo dadaalka ay wadaan iyo shuruudaha cusub ee ay kala kulmeen Puntland iyo Jubbaland madaxda hogaaminaysa ilaa hadda ma jirta wax jawaab celin ah oo ay ka heleen xubnaha beesha caalamka ee ay shuruudaha hor dhigeen عبدالغني sida ay sheegayso xogtan helayno madaxda Puntland iyo Jubbaland ugu dambeynta waxay ku khasbanaan doonaan ama ay sheegeenba inay hadii shuruudaha qayb kamid ah wax laga qabto inay ka qayb gali doonaan kulamada iyo hanaanka doorashooyinka damaanadna ay u baahan yihiin oo gacan saddexaad oo ah beesha caalamku inay damaanad qaado wixii lagu heshiiyay si loo fulin lahaa iyo fulinta laftirkeeda saxiixana ay goobjoog ka ahaadaan marka la fiiriyo macluumaadka soo baxaya waxay cadeynayaan in labada dhinacba ay imaan doonaan kulamada xiga ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka laakiin qodobka culus ee ku saabsan dalka dibadiisa ama goob amni ah in lagu qabto oo dhinacyada Soomaalida dhan ay u siman yihiin iyo in Farmaajo uu tartanka doorashada hanaanka geedi socodka doorashooyinka uu banaanjoog ka ahaado labadaas qodob waa labada qodob ee ugu adag waxaana muuqanaysa laakiin ugu dambeynta inay imaan doonto in sida dhabta ah ay wax kasta ku noqdaan oo ay ku soo dhamaadaan dhinacyaduna ay jabi ahaan doorashada qayb ka noqdaan iyadoo caqabadaha iyo waxyaabaha kala duwan ee dhinacyada ka dhex muuqdaana
ay noqon doonaan kuwo iska soo dhammaada. waaya Faarax marka aan fiirino sida dhacdooyinkii ama arrimuhu ay soo ahaayeen bilii la soo dhaafay xiisad doorashada ay taagneed iyo hadda tusaale birito waa talaado welina Puntland iyo Jubbaland shuruudahoodii baa yaala waxa sii xiga waa Arbaco iyo Khamiis oo Jimco ayaa sii xigi doonta oo haddana musharaxiinta Muqdisho ku sugan maanta aan la wada soconay in ay ku dhawaaqeen in banaanbax kale maalinta Jimcaha ah mar kale ay ku baaqayaan in lagu qabto halkii Jimcihii la soo dhaafay ay shaqaaqadu ka dhacday ahayd daljirka Daasoon. marka maxaa la filan karaa arrimahan kulamadan dib u dhacay waqtigoodii iyo xaaladdan cakiran? sidaan la soconno cabdudaniyow waa runtaa intaasi way dhaceen akiraanta siyaasadeedna markasta waxay uga sii daraysaa xaaladda uu dalku ku sugan yahay maadaama la joogo hal kala goys ah oo ah arrinta doorashooyinku inay tahay weli arrin aan dhinac u dhicin marka laga soo bilaabo 17 September oo la gaaray heshiiskii habraaca doorashooyinka laakiin waxyaabaha ka soo laabtay ay dhinacyadu isku fahmi waayeen markii ay tageen magaalada Dhuusamareeb arrinta gada ayaa ahayd waxa ugu weyn dhinacyadu isku qabteen sida uu sheegay madaxweynaha Puntland oo xalay hadlayay waxa soo raacay oo kale isafgaradkii magaalada Baydhabo 17 bishan lagu gaaray kaas oo wadajir loogu xaliyay arrinta gado Jubbaland iyo Puntland ay ku qanacsanaayeen kadib waxa soo baxay arrinta kale ku saabsan 19 bishan dhacday ka dhacay magaalada Muqdisho rasaasaynta iyo dagaalka dhalisay taas oo ay cambaareeyeen Puntland iyo Jubbaland sidaas oo kale arrinta weyn ee la filayay warka weyn laga sugayay waa fadhiga gaarka ee golaha ammaanka qaramada midoobay arrinta Soomaalida ay ka yeesheen arrinta Soomaaliya ay ka yeesheen gaar ahaanna goordhow sida aad arkaysayba waxa ay wadajir u sheegeen in heshiiska 17 September iyo isafgaradkii 17 February dhinacna aan loo dhaafi karin oo ay tahay in la fuliyo oo lagu dul shaqeeyo dhinacyadana waxay ugu baaqeen gabiib ahaanba inay ka dheeraadaan wax kasta oo keeni kara in dib loo laabto iyo in hanaankii doorasho ee lagu heshiiyey la garan maro sidaan horey u ogeynna beesha caalamku marar badan ayay arrintaasi ku celisay musharaxiintu waxay ku baaqeen banaanbax Puntland xalay madaxweynaheedu waxa uu hadlay si aan horey looga baran saaxadda siyaasadda ee dalka in hoos loogu dago waxyaabo kala duwan oo dhinacyadu isdhaafsan kastoo annagu aanan u haynin cadeymo rasmi ah haddana madaxweynaha Puntland marka la fiiriyo hadalkiisii kan Jubbaland warka musharaxiintu ay sheegeen warka golaha ammaanka qaramada midoobay iyo hadalkii ka sii horeeyay ee xogayaha guud ee qaramada midoobay waxay muujinayaan dhinacyadu inay weli jiraan afkaar kala duwan oo la qabo dhanka fiilada inkastoo ay maanta galinka hore ku dhawaaqday in Puntland iyo Jubbaland ay ugu yeerayso inay kulanka ka soo qayb galaan oo gogosha ay yimaadaan si heshiiska loo fuliyo la soo saxeexo isafgaradkii Baydhabo haddana weli dhankeedu ma bixin faahfaahin toos ah oo ku wajahan arrimihii kala duwanaa ee dhacay iyo jawaabaha laga bixinayo dad badan oo siyaasadda falanqeeya waxay durba tilmaamayaan in haddii marka labaad ee ay ku baaqeen musharaxiintu banaanbaxa haddii aysan imaan caqabadihii yimid maalintii dhaweyta ee 19 bisha oo kale Jimcihii la soo dhaafay inay dhici karto in si nabada uu banaanbaxaasi ku dhaco dhammaan dhinacyada oo dhan ay arrintaasi ka wada shaqeeyaan dad badan ayaana jira iyo sidaan xogaha ku hayna dadaal badan oo ku wajahan in banaanbaxaasi si nabada ku dhaco dhammaan dhinacyaduna ay si nabada uga qayb galaan had kasta iyo nooc kastana waxay ku xirnaan doonaan sida siyaasiga Soomaaliga ay u maareeyo waxyaabaha dareenkiisa iyo shucuurtiisa gaarka ah iyo tendanta guud ee dalka oo markasta iyadu ah muhiimadda ugu weyn. Faarax Cabdulqaadir Geylan oo ah saxafi ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo isla markaa ay la falanqeynayay arrimihii ugu dambeeyay ee khilaafka doorashada Soomaaliya saxbi halkaasi ah